gobolka Kashmir wuxuu dhacaa waqooyi galbeed ee dhulka qaarad ka Hindiya ee caanka ah. dhanka koonfur galbeed wuxuu xad kala leeyahay gobolka Punjab ee Hindiya. dhanka galbeed wuxuu xad kala leeyahay Pakistan. dhanka waqooyi galbeed wuxuu uga beegan yahay Afghanistan, halka dhanka bari uu uga aadan yahay dalka Shiinaha. badka amba masaaxada dhulka uu ku fadhiyo gobolka Kashmir waxaa lagu sheegaa ku dhawaad 242,000 oo kiiloomitir square ah. dhulkan ayaa gumeysi galay tan iyo wixii ka dambeeyay sanadii 1947 xilligaas oo gumeystihii Ingiriiska uu kala qaybiyay mandiqada qaarad ka Hindiya oo ah dhul muslimiintu ay ku badan yihiin. dawladda Ingiriiska oo waqtigaas awoodeeda gumeysi uu sii dhamaanayay ayaa go'aansatay inay kala qaybsanaan u horseedo muslimiinta kadib markii ay xadbeenaad dhex dhigtay muslimiinta. xilligaas oo ay u kala qaybisay Pakistan iyo Hindiya. juqraafi ahaan dhulka Kashmir wuxuu ka kooban yahay buuro, waadiyo iyo dhul siman oo biyo leh, waxaana mara wadooyin muhiim u ah isku gudbinta badeecadaha ganacsi ee isaga kala goosha wadamada dhaca bartamaha qaaradda Aasiya. gobolkan wuxuu dalka ku hayaa buuraha caanka ah ee Himalaya oo ah kuwa ugu dheer caalamka. dagaalo culus ayaa labada dawladood ee Hindiya iyo Pakistan ku dhaxmaray gobolka Kashmir, waxayna dagaaladaas sababeen dhimashada dad ka badan 200,000 oo qof. dagaalkii ugu xoogganaa ayaa labada dawladood dhaxmaray sanadii 1974, balse sanadii 1948 ay fooda isku dareen dagaalkii ugu horeeyay sanad kadib markii xurriyadda ay ka qaateen gumeystihii Ingiriiska. sanadii 1948 dagaalo culus oo dhaxmaray ciidamada Pakistan iyo Hindiya ayaa sababay in militariga Pakistan uu gacanta ku dhigo dhanka waqooyi, halka ciidamada Hindiya ay qabsadeen koonfurta gobolka Kashmir qaybta loo yaqaan Jammu. dawladda Shiinaha oo iyana qayb ka ah dawladaha ixtilaalay gobolka Kashmir ayaa qabsatay dhanka bari ilaa ay haddana xoog ay ku haysataa bariga gobolka Kashmir. kadib sanado ay labada dawladood halkaas ku dagaalamayeen waxaa arinta soo faragelisay waxa qaramada midoobay oo halkaas ka hirgelisay aag hubka ka caagan, sidaas ayna muslimiinta Kashmir ku noqdeen kuwa dhulkoodii la qabsaday oo awoodo kala duwan ay ku loolamayaan. dawladda Pakistan ayaa soo gudbisay xujooyin cadcad oo ay ku sheeganayso in gobolka Kashmir uu wadankeeda ka mid yahay, waxayna diiday in marnaba ay uga tanaasusho dawladda Hindiya iyadoo ganafa ku dhufatay dhammaanba baaqyadii ka imaanayay beesha caalamka ee ku baaqayay inay ka tanaasusho gobolkan istiraatiijiga ah. تقدم دولة باكستان عدة حجج من أجل ضم الإقليم إلى سيادتها وتحت دولتها. أولا أن 97% من السكان هم مسلمون. ثانيا أن كشمير قبل تقسيم القارة الهندية كانت مرتبطة بباكستان الحالية بطرق دولية. باكستان waxay soo bandhigtay dhowr qodob si ay gobolka Kashmir ugu soo darsato dhulkeeda una hoos keento maamulkeeda. qodobka koowaad waa in 97% dadka gobolka ku dhaqan ay yihiin dad haysta diinta Islaamka. qodobka labaad waa in gobolka Kashmir ka hor inta aanan la kala qaybin qaarad ka Hindiya ay Pakistan isaga xirnaayeen dhanka dhulka, isla markaana ganacsigeedu uu ku xirnaa bulshada Islaamka. qodobka saddexaad waa in haysashada Hindiya ee Kashmir uu halis gelinayo nidaamka waraabka biyaha ee wadanka Pakistan. qodobka afraad waa in haysashada Hindiya ee Kashmir uu halis ku yahay amniga qowmiga ah ee Pakistan sababo la xiriira liinaan habka difaaca dabiiciga ah ee u dhaxeeya dhulka ku yaala koonfurta Kashmir iyo wadanka Pakistan. dhulka Kashmir waxaa ku nool dad ka badan 15 milyan oo qof sida ku cad tirakoob la sameeyay sanadii 2000. muslimiinta ayaa ku badan gobolkan, sidoo kale waxaa ku nool aqlaam Hinduus ah oo dawladda Hindiya ay ku deegaamisay qaybta ay qabsatay ee lagu magacaabo Jammu Kashmir. qaybta dawladda Pakistan ay ka maamusho gobolkan waxaa lagu magacaabaa Kashmir al-Hurra amba Kashmirta xurta ah. dadka ugu badan ee gobolka Kashmir oo muslimiin ah waxay ku nool yihiin dhanka Pakistan, inkastoo ay jiraan malaayiin muslimiin ah oo iyana ku dhaqan dhanka Hindiya gumaysato. dhinaca qaramada midoobay ayaa soo jeedisay in gobolka Kashmir la kala qaybiyo isla markaasna muslimiintu ay kala raacaan labada dawladood, taas oo si rasmi ah ugu baaqday in la baabi'iyo qadiyada muslimiinta Kashmir. الحلول المقترحة التي قدمتها هيئة الأمم المتحدة هي كالتالي: أولا إجراء استفتاء في كل كشمير على أن يسبقه انسحاب معظم قوات الدولتين، ولكن العقبة في ذلك أن ay soo jeedisay hay'adda qaramada midoobay waxay kala ahaayeen sida soo socota: in cod qaadis lagu sameeyo dhammaan gobolka Kashmir inta aanan codkaasi la qaadina ay labada wadan ee Hindiya iyo Pakistan ciidamadooda kala baxaan gobolka,
balse tallaabadaasi way shaqayn weysay kadib markii ay hindiya diiday inay ka baxdo qaybtii ay ka haysatay kashmiir. in deegaanada jamo iyo laadaakh ee hinduuska iyo buudiyuunta degaan la raaciyo waddanka hindiya, dhanka kalena deegaanada balestiyaana iyo jaljalad ee muslimiintu degaan la raaciyo bakistaan, dibna loo dhigo codqaadista deegaanada kale ee afartaasi deegaan ka baxsan. in gebi ahaanba kashmiir ay xornimo buuxda qaadato, sidaasna ay ku noqoto dowlad ka mid ah dowladaha adduunka. in qaramada midoobay ay maamusho kashmiir ama ugu yaraan deegaanka faal iyo deegaanada kale ee gobolkana sida ay yihiin. استفتاء في باقي المناطق فال وبونش. ثالثا استقلال كشمير وظهورها كوحدة سياسية مستقلة أي كدولة مستقلة. ثالثا إشراف الأمم المتحدة بنوع ما على كشمير أو على منطقة فال تاركة باقي الإقليم على ما هو عليه الآن. خامسا تقسيم كشمير على أساس خط وقف إطلاق النار سنة 1949 بين الهند muslimiinta reer kashmiir waa kala jinsiyado, balse badankood asalkoodu waa magooliyiin, turki, afghanistaaniyiin iyo kuwa loo yaqaano aarooniyiinta, waxayna dadkaas mandiqada ku degeen qaab ganacsi xilligii futuuxaadka muslimiinta oo islaamku uu kusii faafayay bartamaha qaaradda Aasiya. luqadaha muslimiinta kashmiir ay ku hadlaan waxaa ka mid ah luqado maxalli ah iyo lahjado ay isku fahmaan, waxaana ka mid ah luqada kashmiiriga, urdu iyo hindi. sidoo kale muslimiinta ayaa qaab xuruuf u isticmaala luqada carabiga, waxayna badanaa u adeegsadaan qoraalada buugaagta iyo fariimaha ay isku fahmaan. sanadii 1947 markii ay hindiya iyo bakistaan noqdeen dowlado madax bannaan, gobolkan wuxuu noqday mid u dhaxeeya saddex awoodood oo kala ah shiinaha, bakistaan iyo hindiya. shacabka muslimiinta kashmiir ku nool ayaa dhigay dibadbaxyo waaweyn oo ay ku cilaaminayeen inay yihiin dowlad islaami ah, balse dadka aqaliyadda ah ayaa u qaylo dhaansaday dowladda hindiya si ay uga badbaadiso in muslimiintu cagta ay mariyaan. sidaas ayayna dowladda New Delhi kumanaan ka tirsan ciidamadeeda ugu dirtay gobolka si ay u ixtilaalaan, wuxuuna gobolkan ilaa iyo hadda oo muddo 72 sannadood ah laga joogo marti gelinayaa loolana soo jireen ah.